وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. xarunta dhexe ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa waxaa laga daafuray tartanka Quraanka Kariimka oo shirkaddu ay ku tartansiinayso shaqaalaheeda sanadkiisii koowaad. waxaana munaasabadda daafurka ka soo qayb galay mashaayikh madax ka socotay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom, qaar ka mid ah howlwadanada shirkadda iyo marti sharaf kale. tartankan ayaa ujeedkiisu yahay dhiirigelinta akhrinta iyo ku dhaqanka Quraanka, kor u qaadista anshaxa iyo qiyamka Islaamka ee shaqaalaha iyo xoojinta kaalinta shirkadda ee mas'uuliyadda bulshada. shaqaalaha ka qaybgalaya tartankan oo ah mid final ah ayaa gaaraya 11 qof, kuwaasi oo ka soo baxay tartan hordhac ah oo loo qabtay 100 shaqaale oo ka kala socday xarumaha iyo waaxyaha kala duwan ee shirkadda. khadiibka iyo imaamka masjidka Cali Jimcaale Dr. Cabdikariin Ciise Cali oo ugu horeyn ka hadlay daafurka tartanka ayaa sheegay inay dhiirigelinayaan tartankan. xaqiiqatan arrinkan musaabaqaadka noocaan oo kale waa arrin dhiirigelinaya quraanka in la barto, la isbaro. waxaana ku dhiirigelinayaa in dadka musaabaqaadka ku soo baxa oo shaqaalaha ka mid ah oo mutamayiziinta in qiimaynta shirkadda ay samayso shaqaalaha dhexdooda ka samayso in lagu rafciyo, lagu kor yeelo ahlul quraanka ilaahay uu quraanka ku saramariyay, qiimayntana lagu daro. sababtu waxaa weeye qofka ilaahay kitaabkiisa qalbigiisa ku weelay waa qof ilaahay uu doorto weey, qof ilaahay uu sharfo weey. marka idinkuna waad sharafteen. waxaan rajaynaynaa insha Allah tartanka inuu sii socon doono. sidoo kale waxaa aad iyo aad farxad ii ah inaan qayb ka ahay guddiga garsoorka oo taxkiimka oo insha Allah tacaala sharaf iyo fursad ay ii tahay in raggii inta badan aan isku baranay dowraadka tadriibiga iyo tababaradii in aan haddana maanta aan u joogno tartankii quraanka. madaxa shaqada iyo shaqaalaha shirkadda Hormuud Telecom Xasan Cusmaan Diiriye ayaa sheegay in maanta taariikh cusub ay u qormayso shirkadda Hormuud, maadaama ay tahay maalintii ugu horeysay shaqaalaheeda ay ku tartamayaan quraanka. waxaana uu sharaxaad ka bixiyay sida waaxaha shirkadda ay ugu soo kala baxeen tartamayaasha. ujeedka kulankan maanta waa daahfurka tartanka quraanka kariimka ah ee boorkiisa khaaliga oo dhabarkeena ka muuqdo. waa maalin taariikh cusub ay noo qormayso runtii haddaan nahay bahda Hormuud. waa maalintii koowaad, wax badan rikoorka noogu jiro taariikha, laakiin maanta waa taariikhaha ugu muhiimsan aan leenahay. maalinkii koowaad oo ay shaqaale weynaha shirkadda ay u tartamayaan tartanka quraanka kariimka ah oo runtii waxa ugu qaalisan ah. waxaa mahad leh culimmadii Soomaaliyeed ee arrinkan bulshaweynta oo dhan ku baraarujiyay barnaamijkii loogu magac daray khayrukum. intaa kadib arrinkan markii maamulka sare uu go'aankan qaatay, dhammaan shaqaale weynaha shirkadda iyo maamuladoodaba si qurux badan oo diiran u soo dhaweeyeen. waxay cabireen dareenkooda, waxay yiraahdeen waqtigu baa qornaay, arrintan waxay ahayd inaan mar hore aan ku baraarugno. marka arrin aad iyo aad si diiran shaqaalihii ay u soo dhaweeyeen ayay noqotay. runtii arrintan xogaa shaqa laga soo qabtay si laga dhawaajiyay markii la isla qaatay.
iyadoo qorshuhu ahaa maanta daahfurkan in 10 qof ee loo soo xulay inay tartankan u soo fariistaan ma ahayn dad iska soo baxay waa dad ka soo baxay short list dheer maadaama ay shaqaale weynuhu ballaaran yihiin ilaa 5,000 oo shaqaale ay gaarayaan waxaa la soo xulay ilaa 100 qof maadaama dadkoo dhan aan la wada gaari karin ayadoo ratio lagu kala qaybiyey qaab dhismeedka shirkadda gudoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Yuusuf Caynte ayaa goobta ka jeediyay hadallo baraarujin iyo dhiirigelin ku aadan tartanka iyaga oo tilmaamay in quraanku yahay waxa ugu wanaagsan ee lagu tartamo ila ka mid tahay in diintu meel kasta gasho oo dadka muslimiinta la rabo inay diintoodu ka muuqato meel kasta oo kaliya iska ka muuqanin madaarista iyo macaahidda diiniga quraanka laakiin shaqaalaha caadiga oo iska shaqaysanaya in diinta xurmadeeda iyo ku tartanteeda uu muuqdo waxaan soo jeedinaynaa in guud ahaan looga daydo shirkaddan tilaawada wanaagsan oo maaragtay qiimaha maaragtay sharikaadka iyo maamulada xataa dawladda lafteeda in diinta meel kasta la geliyo oo qofka muslimka Soomaaliyeed diintiisa qiimaheeda uu ka arko xafiiskiisa iyo shaqadiisa wixii uu qiimaha badnaay oo bani aadan isugu yimaado waa quraan in quraan la isugu yimaado dartiisa xifdintiisa akhrintiisa ku dhaqankiisa isu sheego wixii ugu qiimaha badnaay ee qof oo muslima oo helo waa shay baakuura ah shaqaale hadda alla ku roon shirkad in maanta ay isugu yimaadeen tartanka quraanka waxaan ka rajaynaynaa muassasaadka kale ee ama dawliga ah ama aan dawliga ahayn inay ku daydaan barnaamijkan aad iyo aad qiimaha u badan qiimaha leh Muuse Axmed Nuur oo ah xubin ka tirsan guddiga fulinta shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa sheegay in quraanku yahay maskax dhiska bani aadamka isaga oo tilmaamay in arintani ay sii socon doonto iyada oo la dhiirigelinayo dadka ka soo baxa tartanka sharikadda markii diinka way ku bilaabatay maaragtay haddana waa arrin ay haddana bilowday oo maaragtay ay mowduuc cusub ah insha Allah waxaan jecelnahay in lagu daysado insha Allah waxaan jecelnahay inay shaqaalahana u noqoto dhiirigelin oo quraanka lagu dhiirado oo ninku uu quraankiisa bini aadanka maadi baa kamida yani fitrada bini aadanku maadinima kamida maadi inuu yahay oo xagga maadada bini aadanku xagga maadada Sheekh Bashiir hada inuu bini aadanku yahay maaragtay adduunyo iyo aakhirada mid wax dhinac walba u jiroon kara malaa'iktu waa dad toosan maaragtay xooluhu waa bini aadanku waxa way marka hadii loo qiimeeyo diinkiisa inuu dad badan u cusboonaysiisan doono insha Allah saasaan rajaynayaa sharikaduna dadka soo baxa inay si fiican u wanaajin doonto oo maaragtay waxaan loo yaqaano maxaa la yiraahaa dumaxaad ma aqaan wax dhiirigelin ay u noqon doonto insha Allah Sheekh Cabdulcaziis Cabdullaahi oo kamid ah lajnada tartanka oo faahfaahin ka bixinayay tartankan ayaa kula dardaarmay tartamayaasha inay isdejiyaan oo kalsooni badan ay muujiyaan inta tartanku uu socdo musaabaqadu insha Allah taala sida caadiga oo la yaqaanay oo aan musaabaqaadka kale u qabano maadaama quraanka kariimka lagu tartamayo ayay u dhici doontaa waad aragtaan hortiina waxa ah kombuyuutaradaas waxa ku jira as'iladii mutasaabiq waa imaanaya mutasaabiq wuxuu dooranayaa su'aashiisa insha Allah taala waa loo sharxi doonaa kadibna xagga ay uga soo bixi doontaa meeshuu taabtay lambarku taabtay su'aalihiisa uu dhameystiran doonaa liawwal marra say shirkadu naga codsatay liana musaabaqada markaan qabanno bandi waxaan haysanaa la yiraahdo khuffifa anhu oo musaabaqada laga khafiifiyo ardaygii aad u gafka badan oo musaabaqada fahmi waaya su'aasha waa laga khafiifiyaa sida caadiga
laakiin shirkaddu waxay dhaheen waxaa laga yaabaa dhowr iyo tobanka koob iyo tobanka mutasaabiqba inaan aan siino mukaafacaad walidaalika waa in ay galaan lamaro tasalsula oo muxuu aha kulligood sidaa darteed su-aashaada waad dhammaystan doontaa haddaad xataa wax badan gaftid insha allahu tacaala ragga wada xufaad weeye annagaa imtixaanka hore uga soo qaadnay 100 qof bay ka soo baxeen qof iska baqayo waa dhici kartaa iyo wax kale ilaahi subxaana wa tacaala khayr baa idin wada rajaynaynaa kadibna saddexda qof oo ugu horeysa ayaa musaabaqada fi lghaalib marka la yidhaahdo 10 qof baa soo baxaysa 10ka lajnadu way taqaanaa qofka koowaad labaad asagoo musaabaqadu xataa socoto wax darajada la rabo ciddii ka dhacda oo maalan 90 baa la rabay 97 markaad 87 iyo meelaha markaa marayso waa lagaa fududayn jiray laakiin hadda insha allahu tacaala musaabaqada waa dhamaysanaysaa sidaan hore u sheegay mutasaabiqu maadaama rag waaweyn ay yihiin oo idna musaabaqo badan geli jirin waxaa laga yaabaa xoogaa qofku inuu boqo meeshu waxa weeye aad bay xoogaa u cabsi badan tahay oo musaabaqada waa naqaanaa walidaalika maadaama markii ugu horreysay ay tahay insha allahu tacaala isdeji tartankan sanadkiisa koowaad waxaa la filayaa inuu noqdo bilow rasmi ah oo tartan sanadla ah keeni doono saameyn togan shaqaalaha iyo sidoo kale guud ahaan bulshada. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees.